munaasabadan oo ahayd mid si weyn looga xuso sanad guuridii 58aad ee ka soo wareegtay aasaaska ciidanka xooga dalka 12 Abriil ayaa ka dhacday magaalada Muqdisho iyo meelo kale oo kamid ah gobolada dalka. Munaasabada ayaa laga dareemay magaalada Muqdisho iyadoo ammaanka aad loo adkeeyay, waxaana ciidamada xooga dalka munaasabadaasi ka dhacday xarunta gaashaandhigga ku soo bandhigeen dowlatus ciidan iyo gaada ka ciyaar. madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo iyo madaxda ugu sareysa dalka iyo taliyayaasha ciidanka ayaa ka qayb galay munaasabadaasi maalinta 12 Abriil lagu weyneynayay. waa kuwa qodbooyinkii kala duwanaa ee dardaarankii dhiirigelintaha ay munaasabada ka jeediyeen. kiisha daadaya ee aqoonta kala duwan ee ciidamada ciidanka uga soo baxay kulliyadaha dalalka aan walaalaha nahay sida Turkiga, Suudaan, Uganda, Masar. boqolkiiba 70 diburiska ciidamada qalabka sida madaxweyne qodobada ma istaagin wixii faahfaahin ama bixina runtii taliyaha ciidanka xooga dalka Soomaaliyeed ayaa faahfaahiyay qaabka ciidanka ku dagaalamo oo la soo baray waa convention dowladda kale oo dagaalgelina macnaheedu waxay tahay laba ciidan isku safan oo madaafiicda hub isku garaacaya dagaalka maanta haysta ma dagaal noocaas ma dagaalka maanta haysta waxa weeye isticmaalka weeye waa ciidan gorilla waa ciidan ku dhufo ka dhaqaaqa waa inaan abuurno ciidan commandos inaan abuurno oo u carbisan meel kasta iyo god walba inay u geli karaan qooyinkaan nabadka oo u baxay inay ummadda Soomaaliyeed nolosha iyo mustaqbalka ku diidaan. Muuse Maxamuud Jiiso, Ariel TV, Muqdisho.